بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. عادي أيام السلام يا حلوانذا شرفت له برلمان كفدرالك سوماليا يحمنها أقل كسرة قدومك وانكب الله يسلانت انتبه مضيان مرويين ذلكن ومريم مرحلة أبار آذو علوس هيستو ضدك الصوماليات إن كبدا هم اللي صدح بقول أو الصوماليات أي وحي ويهين ما أنت هوس جوجان جد أبارات هوس هرسنايا مركب وحنا إلهي كرجينيا إن وأبارتنا جسارو لما أنت إن أجور منو هذه وحنا نقوم هذا علنيا قدوم كبرلمانك وكوري جي قدق أبارها لعقتي مشاريعين تنسكت وحنا كلو ربا inaan ka dhawaajiyo aadna u soo dhaweeyo go'aankii daraad ka soo baxay maxkamadda caalamiga ee cadaaladda ee ku saabsanaa xukunka la xiriira go'aan qaadashada ama xukun qaadista la xiriirta muranka noo dhaxeeya annaga iyo dowladda Kenya waxaan aad iyo aad hoosta uga xariiqayaa in maxkamaddu ay ictimaaday oo ay go'aankeeda ku dhistay isafagaradkii 2009kii aan saxiixnay Soomaaliyana maanta u noqday nafta kaliya ee maxkamadda la horgeeyo kaasoo ay ku mudan yahay sida xeelaliyaha qaranka Soomaaliyeed oo sheegay dadkii hawshaas galay ay sharaf iyo karaamo ku mudan yihiin waxaase wax aad looga xumaada in musharaxiinta qaar isku dayeen inay ka kaluumaystaan biyo calow arintaas la xiriira waxaan rabaa inaan gudo galo barnaamijkayga siyaasadeed intaan gudo galin dabcan barnaamijkayga waxa la isku tashi aad ayaan u faafiyay intii aan campaign ku jiray 9kii bilood ee soo dhaafay dhammaantiina gacanta ayaa ku wada haysataan isku tashi waxa way aan isku tashano maxaa igu dhaliyay isku tashi aan rabaa inaan ka jawaabo ee sababta keentay hadii aan ummad muslimaan hadaa u noqono quraankeena kariimka aayad quraan waxa ku jirta aad u xoog saaraysa isku tashiga halkaas ayaan ka soo dhiraandhiriyay falsafada isku tashi aayadaas aan rabaa inaan la wadaago aayadda waxay ka hadlaysaa nin boqor oo leeyahay dalqarnayn oo asagoo musaafir oo socda ay wuxuu ku soo baxay qolo ay ka kala daadsan tahay ka tawaalaysan tahay ka taalo sideen oo kale markaas ay waxay weydiisteen in ilaahay ay ka magan galaan asagana uu ku caawiyo in ay sad u dhisaan in yaajuuj wa maajuuj waxay dhahay musiduuna fil ardi fahal naj'al laka kharjan ala an taj'ala baynana wa baynahum saddan war nimankan yaajuuj wa maajuuj taad nooga dhisay ku dhaheen waxa laali waxa rabtana aan ku siino oo qarash ah waa qolo qarashkii haysata hantidii haysata wax walba haysata laakiin ay ku dhacday hogaan la'aan asagana wuxuu ugu jawaabay qaala ma makani fi rabbi khayr ilaahay wuxuu isiiyo imakaniyay ayaa iga khayr badan faa'iinuni biquwa ee awood igu saacida idinka culimada marka waxay dhaheen quraanka fasira dalqarnayn qolada uu caawiyay waxba kuma soo kordhin aan hogaan ahayn آتوني زبر الحديد وكذا إيه كان زبر الحديد كا آتوني وحكينا وأيجا زبر كحديد كوحيستنا وأيجا حتى إذا ساوى بين السدفين وحولها خالا فخو أفوفا وح أفوفا ين وأيجا حتى آتوني أفرغ عليه قطرا إيه كانوا يجي أيضا نبي عيسو جوانيس عن كشوفه وهو حاسوطن سميني أو تلعب تقاضي أو زبر كهيستا أو ود هيستا أو حديد كهيستا وهي هاي انقرضوا ويمين laakiin asagu waxa uu keenay kaliya hogaan waxa maanta aan meeshan u taaganahay aniga rag ila midka waa hogaanka dalka diinteena hogaanka dalka waxay u leedahay marjic iyo reference ay u leedahay hada ka war nabi yuusuf ay ijcalni ala khasaa'il al-ardi inni hafidun alim waxa sheegtay laba sifo oo ah waxna waa xifdiya aqoonna waa leeyahay macnaheedu amaano iyo xifdi labadaba waa leeyahay ayuu sheegtay gabadhiina waxay tiri markii aabeel hadlaysay nabi muuse ka waramayso waxay tiri استاجره إن خير من استاجرت القوي الأمين لكن مثل وياك بدوعيا بغردي السبع حكومة جرت اليمن وأنا هذا بحومة أفر لواتن كمشارحة تفتمعية إن يستنقبر كجري لكن الدون كان هبلا عظيمة وسوه قامية جرو ودين الإسلام تنكو الرمين مركز وحكوتي رايد وقولوا إلى تشان إذا مركي الوشاقي النبي سليمان ملكي يسي وكسو صعدو أي وحي تري ما كنت قاطعة أمرا يا أيها الملو أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون وعيتري إيه فضواضا قوان إذيك اللي أنتي المقاتل وعيلة تشاني زدت كده تلو ذاك تلو ذاك دكتي وعيتري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون إذنك وعيتري
warama go'aan ma qaata idinka la'aantiin marka quraanku naftiisa waa leeyahay wax ku salaysan arintaas ayada ah waxa kale oo ka sii mucjiso badan nabi Suleymaan boqor waha mulki ilaahay siiyay maalin buu wuxuu waayay hudhudkii waayay hudhud shimbir leeyahay markaas uu yiri maaliya la aral hudhuda am kana min al-ghaibin warninkii hudhudka maxaa ku dhacow yiri hudhudkii meel yar buu ku dhuuntay intuu soo baxo wuxuu ku yiri ahadtu bima lam tuhid bihi wajituka bisaba'in min naba'in yaqin waxa adiga garanay waa ninkii boqortooyada ilaahay intaas la egsiiyay wuxuu yiri waxaadan ka warhay baan ka soo war helay oo waxaan arkay naag saba la yiraahdo dhulban xukuntaan soo arkay nabiga isma waan wuxuu yiri bal ii waran hudhudo warkiisii macnaheedu maxay ku sanaysaa nin mulki iyo nabinimo ilaahay siiyay oo shimbir wax ka dhageysanaya macnaheedu awood hadaad hayso diintii waxay ku tusaysaa inaad ku takrifalin dadkana aadan xaqirin oo aadan ka dhageysan oo san yaraysanin nabi muuse markuu yajcalni wasiiran min ahli haaruna akhi هارون أو وزير إيجادي ويجي ولاكي إلهي هو ويدي سووا هو أفصح مني اللسان ويجي وإيجا فساحات بدنيا معناه إذا هو كرتي أنا هيستنا وهيستوى ما ده إنه حلو أركي هو كرتي اللي تكليه ربان دينتنا وعنا لا لا متكا كرتي بدن هاتسو يا قاتتاس ديمقراطية قلبتك وما أنت أول حق التاجينا قادتي من مدحوينا أما برايم مينستر وعلقتها إنه حافيزك يستكقروا نينا سوي كليته إنه كقروا وعلقتها sababtoo accountability la xisaabtana u taagan mudanayaal iyo marwooyin dawlad markaan fasirayno waxaan ilaadaa Soomaha ama qaran markaan sheegayno waa la isdhex geliyaa inta badan waa dal iyo dad iyo xukun waxaan rabaa inaan ka hadlo xukunkana waa labo xukunka waa sovereignty-ga waa siyaadada maanta waxaan rabaa inaan si saraaxo leh in la wadaago aan weydiiyo ma hayna anaga siyaado ama madax banaani ma nahay qaran madax banaan haddaan Soomaalinahay su-aasha meesha taalo waa taasa madax banaanideen laba loo qaybiyaa mid gudaha ah oo dawladdu inay leedahay legitimate monopolies of finance wax la yiraahdo awoodda dawladnimo inay gacanta ku haysato oo ay ciidanka nabadgelyada iyo booliiska ay shaqeynayaan oo maxkamadaha ay shaqeynayaan oo dawladda amarkeeda oo hirgelayay soconaya ma haysana madax banaanida waa mid dibadeed oo inaan xuduudaheena ka difaacana cadawga territorial integrity-ga Soomaaliya la ilaaliyaa midnimadeeda la ilaaliyaa cirka iyo badda iyo dhulkaba laga difaaca ma haysana ciidankaas maya amisom ma runta inii sheegaya dhamaanteen oo ognahay xuduudaheena amisom ilaalisa madax banaanideedana amisom ilaalisa labadaas ma haysano waxa la rabaa inaan runta maanta aan isku sheegno aan isku warano si aan meesha aan joogna uga guurno aan meel kale u tagno madax banaanideena ama sovereignty-geena maanta anaga gacanta nooguma jirto taasaa keentay inaan dhamaanteen markaa isqabano aan xalano u kala dacwoono waan joogi jigaan xalane sanad iyo baran ka shaqeynay la taliyo waxa labadan inay meesha soo martay madaxda ka UN-ka halkaaba loo soo wada dacwoodaa halka loo soo arooro waa halkaas inay madaxda ka warqabtaan maleynaya sababtoo ah gacanta kuma haysano awoodeeni iyo madax banaanideedni midna waan dayacanahay haddana madax banaanidii haynina marka dawladnimadii wali gacanta kuma hayno laakiin wadadeedii aan hayna maxaa keenay dawladnimada inaan gacanta ku haynin madax banaanidii ama siyaadadii qaran ama sovereignty-ga way qaybsan tahay qayb Jubbaland ay taala qayb Puntland ay taala qayb Galmudug ay taala qayb Hirshabelle ay taala qayb Xamar ay taala iyo baarlamaanka awoodda iyo siyaadadu way qaybsan tahay ma kari karnaa inaan awood dawladeed inta yeelano aan siyaadada iyo sovereignty-ga soo celino hal meel isugu keeno waa kari weyne 12 sano dawladda ku meel gaarka lisay waxa la yiri hal wada hadal badalkeedii waxa la yiri wada hadal hal lagu keen hal lagu soo celiyo sovereignty-ga ama siyaadadii qaran waxay u baahan tahay waa run in wada hadal lagu soo celiyo u baahan tahay maadaama dawlad awood leh oo siyaadadii iyo qarannimadii hanantaa meesha aysan joogin maxaa badalkeedii yimaaday hal wada hadal siyaasad si loo keeno waxaana kaloo haysanin ciidankeena amniga qaranka waa ka xumahay taliyayaasha inay joogaan laba sugidda iyo booliiska intaba iyo militariga intaba ilaa hadda ciidankeena masruufkiisa waxa bixiya dad shisheeye indhahana ka qarsanaa waa ognahay mishaarkiisa shisheeyaa laga sugaa ma dhici kartaa naba sugiddeena haddii mishaarkeeda shisheeye ka sugayso oo taageeradeena shisheeye ka sugayso oo dhaqaalaheeda shisheeye ka sugayso inay naba sugid qaran noqoto ma dhici kartaa ma dhici karto sida kaliya ay ku imaan kartaan waxa waaye inaa anaga hanano ma bixi karnaa mishaarka naba sugidda waa bixi karnaa bal fiiri miisaaniyadda liisoo hor dhigay sanadkii hor 2006 iyo madii sida ku meel gaarka loo keenay naba sugidda Soomaaliya intay ku leedahay fiiri ciidanka xoogga dalka Soomaaliya intuu ku leeyahay fiiri miisaaniyadda booliska Soomaaliya intuu ku leeyahay miisaaniyadda fiiri
naashi bacali hadda ka horgabiyo wuxuu yiri maraykanka waxaan qaramadii midoobay waxaan iriyay qalin maraykanmaatihin markaas ii soo jawaabay waxay dhaheen masruufka maamulka oo baxshaaho maha looga maarmeeyay ninka masruufka bixiya ayaa maamulkan looga maarmeeyay wax adwa hadaa marka rabnay inaan wajahno xaqiiqada dhabta ah waa inaan taas ku wajahnaa mudane marwooyin qodobka saddexaad oo meesha yaalo waxay tahay baarlamaankeena kii sagaalaad iyo kii tobnaad iyo kii ka horreeyay dhaqankiisii weli waa isku mid haddii sida loo falgelayo siyaasadda sida loo maamulayo hanaanka siyaasadeed sida wax loo yeelayo dhammaantood waa isku hal waxaan u haysanaa waxa sababtaas keenana waxay tahay inaysan ahayn organized politics wixii la dhahayo siyaasad sideedaba waa danta guud oo la maareeyo annagana dantii guud nooma nidaamsana 276 iyo 54 hadda ku soo biirtay qof walba wuxuu ku joogaa individual capacity macnihii shakhsigiisa oo baarlamaanka ugu jira ma matalo xisbi siyaasadeed ma matalo group siyaasadeed ma matalo ideology siyaasadeed ma matalo dan siyaasadeed haddaanan siyaasadda la organize garaynina way adkaanaysaa inay siyaasadda macno yeelato waxay ku wareegi doontaa intii meel ku wareegi jirto oo ah madaxtooyada xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo baarlamaanka intaas bay ku wareegi doontaa ma fidi doonto awoodda siyaasadeed siyaasadda ma socon doonto halkaas ay ku xayirnaa doontaa arinta siyaasadda qodobka saddexaad wuxuu aan rabaa inaan taabto barnaamijka isku tashi waad haysataan qodobada ayagoo qoran ay ku jiraan laakiin anigu waan kor marayaa kaliya waxay tahay waa arrimaha dibadda Soomaaliya waxay ku taalaa meel muhiim ah adduunkana muhiim u ah laakiin waxaad moodaa hadda inay ahamiyadeeda soo baxayso waxaadna aad u sii ogaanaysaa markaad tira xilka madaxweynaha rabaa Soomaaliya bal dadka Soomaaliya daneeya ee maqlaysaan in inta madaxdii la wado dibadda la geynayo la weydiinayo joyskooda madaxweynimo inta la isaga yeelayo xagga la iska wacayo interview la iska qaadayo in kama qarsana waa ogtiin waxa keenaya maxaa waaye siyaasadda bariga dhexe iyo markas siyaasadda gobolkan ee geeska Afrika ku xiranta siyaasadii gobolkii dhexe waxay noqotay mid la isaga baxay la isaga baxay awoodii siyaasadeed ee garantoorka ka ahayd ee daaminka ka ahayd ee bariga dhexe siyaasadeeda ku dhisneed dawladda Mareykanka ayadaa go'aansatay inay si tartiiba uga siibato bariga dhexe marka xoogag tartamaya ka soo baxay oo Iiraan u weyn tahay Turki dhinac taagan tahay Sacuudi oo la sunniga islaamka hogaaminaya iyo wixii raacsan iyo wixii lamid ah tartankaas ka jira bariga dhexe wuxuu ku soo gadoomay geeska Afrika ayadoo awalba geeska Afrika oo kamid ahaa meelaha ugu xasaradaha badan gobolka adduunka ugu xasaradaha badan saddex meel la sheegaa waa halkan geeska Afrika anaga aan deganahay Balkaniska iyo bariga dhexe tartankii wuxuu keenay in lagu tartamo Soomaaliya in kama qarsana inta dawladda rabta inay Soomaaliya military base ka hesho ama military meel saldhig military ka hesho ma qarsana loolanka taagan ma qarsana dawladaha jaarka ee sida qaawan ugu tartamaya doorashada Soomaaliya mid qarsan maaha laakiin maxaan u baahanahay haddii Sacuudi iyo Iiraan iyo Turki iyo Qatar iyo Ethiopia iyo Kenya iyo Masar iyo dawladaha gobolka dhow iyo gobolka fog oo dhan ay ku tartamayaan awoodda Soomaaliya ay ku tartamayaan iyo qof walba inuu Soomaaliya ka helo meel uu salka dhigo waxaan u baahanahay hogaamiyaha marxaladda soo socda imaadoona inuu noqdo hogaamiyihiisa furan yihiin inuu noqdo hogaamiye miisaami kara geopolitics ka nagu hareeraysan hogaamiye ka warqaba loolanka siyaasadeed ee gobolka dhow kan dhexe iyo ka fog ka dhaxeeya ee Soomaaliya ku jihaysan ma aha hogaamiye meeshii looga yeer dhagtiisa maqlay ma aha hogaamiye qariska tuur inuu noqdo oo qariska tuurnimada waa wixii diiday diblomaasiyadda Soomaaliya dhexdiisa la soo dhaafay mana aha hogaamiye inuu noqdo iska hiiraacayo oo meeshii looga yeero farta looga fiiqi tagayo ma iyo waxa la yiraahdo wixii saxiix la yiraahdana qalin ku jiiday wuxuu u baahan yahay hogaamiye isku miisaami kara danaha kala duwan ee gobolka iyo midda adduunka isku miisaami kara inuu yahay ayaa loo baahan yahay waxaan u haysanaa mudanayaal marwooyin haddaan u soo noqdo qodobka ugu muhiimsan waa u dawmariyay laakiin waa midka koowaad ugu muhiimsan waa xasiloonida siyaasadeed saan ku heli karnaa annaga Soomaali haddaana waxaan isku haynaa siyaasadda musharax kastana waa ka dhawaajiyay laakiin siyaasadii hadda waan gabalgabalaynay iyadoo gabalgabal ah ayaan goobo kala duwan ku haysanaa waana isku challenge garaynaa oo jiqaan isaga dhignaa markaan rabno see lagu keeni karaa taas ayaa muhiimadda ay tahay waxaa lagu keeni karaa in la dhiso nidaam siyaasadeed oo heshiis lagu yahay
sida aan la socotaan dastuurka ku meel gaarka ah hal qodob lagama taaban qabiilkiisii wadankan wax walba qabiyo waaye in la socotaan waaye wadanka wax walba waa qabiyo dastuurkii weli lama qabiyo tirin awoodaha siyaasadeed u dhaxeeya maamul goboleedka iyo dawladda dhexe waxa sheegay dastuurka maamul goboleedyada waxaan ognahay inay ku dhismeen hanaan siyaasadeed iyo waaqic siyaasadeed laakiin sharci baarlamaankan ansixiyay kuma dhismin maanta waa ognahay malaha waxa la yiraahdo legality framework ama constitutional mandate ay haystaan ma jiro waxay u baahan yihiin hadda ka bacdi inay yeeshaan waxay u baahan yihiin in gradual process wax looga baxayo ku meel gaarnimada dawlad goboleedka in la sameeyo indhahan kala furno oo ay gaaraan dawlad goboleed buuxda oo shuruudihii dastuurka uu siiyay ay yeeshaan waxay u baahan tahay in laga wada hadlo waxaan u baahanahay nidaamka xisbiyada badan inaan keeno si siyaasad xisbi iyo fikri ideology ku dhisan ay u noqoto aan ka baxno siyaasadda qabiilka iyo adeernimada iyo tolaysiga aan ka baxno oo adduunka oo waa hore ka tagay qodobka saddexaad u baahanahay waxa waaye inaan dib u eegno mar kale oo si dhaba aan u fiirino nidaamka federaalka ah oo hadeertaan annaga wadanka aan ku keenay wuxuu ku yimid heshiis siyaasadeed wuxuu u baahan yahay inuu u dago heshiis bulsho inuu noqdo arintaas markan aan hoosta ka xariiqayo nidaamka federaalka wuxuu ku yimid heshiis siyaasadeed wuxuu u baahan yahay inuu u dago heshiis bulsho iyo heshiis dastuuri inuu noqdo u baahan yahay waa laga maarmaa arintaas maxaan annaga markii isku tashi aan nahay maxaan haynaa hoon soo bandhigaynaa waxaan aaminsanahay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed marka lagu daro nabad sugidda marka lagu daro booliska marka lagu daro ciidamada kale asluubta kulli iyo marka lagu daro AMISOM intaba konton ku kor u dhaafsan yihiin konton kun oo ciidan ah wadankan joogta waxaan ognahay kontonkaas kun oo ciidanka ah in aysan wali ammaankiina soo celin xasiloonina keenin kala dambeyntii sharcigiina aysan keenin maxaa ka qaldan marka aniga ma rabo inaan wuxuud baana inta inii sheegay iraahdo saasaan yeelayaa iyo xaqaan dhisayaa sababtoo ah dawladnimadu waxna waa base waa arkaanta ay ku taagantay waxna waa dawladda markay dhisanto waxa la rabo inay qabato inayna seekay qaldamaan ma dawladnimada afar arin ay ku taagantahay hadaan la helin wax ma qaban karto caafimaad wax kama qaban karto waxbarashada wax kama qaban karto jidadna ma dhisi karto dhaqaalana ma abuuri karto hadayna arkaanteeda afarta ayada ay ku taagantahay marka hore aan la taagin afartaas rugni maxay yihiin waa amniga daaqiliga waa ina ciidankeedii booliska iyo nabad sugidda iyo nabadgeliyada iyo maxkamadaha ay dhisan yihiin oo dawladdu ay leedahay awood ay sharciga ku meel mariso canshuurna ay ku qaadan karto ciidankeeda qaranka inuu dhisan yahay oo siyaadada iyo madax banaanida qaranka uu ilaaliyo ayaa loo baahan yahay dunida hadda aan ku noolnahay carabta waxa la yiraahdaa laba dawlad kaliya iyo bariga dhaxo dhan isku dar laba dawlad kaliya dawlad ka ah waa Egypt iyo Tunisia sababta u yihiin waxa waaye rejiimka wuu isbedelaa laakiin dawladdu way taaganta midda labaad waa maxay qodobka labaad waxa waaye inaan helno bureaucracy-gii shaqeynaya maamulkii dawliga ah wada ogtiina hadda warqad xafiis ka baxdo oo xafiis kale ku dhamaata waxaan ku amaanayaa waxa ugu roon gudoonka baarlamaanka runtii ma horteeda inay fadhiyaan laakiin inta kale physical communication is arag shakhsiga lagu wada shaqeeyaa prime ministerka madaxweynaha wasiirada ra'iisul wasaaraha madaxweynaha waxa kulamada tirada badan u socdaan waxa waaye bureaucracy aan shaqeynaynin macnaheedu bureaucracy dawladeed aan shaqeynaynin taasna waa rugniga labaad ee dawladdu inay ku istaagto loo baahan yahay waa ciidan amni daaqili waa ciidan khaarijiyo ilaaliya sovereignty-geeda ciidankii qaranka ilaaliya madax banaanideeda waa bureaucracy inay dhisan yihiin justice cadaaladii marka fiiriso miisaaniyadda budgetka cadaaladdu waa meesha ugu dhaqaale yar xafiis kasta ka dhaqaale badan cadaaladda waxaan suugaynaa garsoor inaan dhisno way adag tahay garsoorkaas inuu dhismo aad u adag tahay maxaa marka ciidankaas Soomaaliyeed inuu dhismo hortaagan dhowr qodob aan anaga sheegnay aragti la'aan mudnaansiinta dhismaha iyo maalgelinta ciidanka qalabka sida is-afgarad siyaasadeed oo aan ka dhex jirin dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada qaabka baaxadda hanaanka sharci ee ciidanka xoogga dalka uu yeelanayo maamul goboleedyada wax badan aan ka ogaaday intaan ka shaqeynayay dhinaca kale United Nationska marka la kulanto runta gaaladay u sheegaan Soomaalidu iskuma sheegaan waxa la aaminsan yahay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iga raada taliyihiisa meeshan uu joogo inuu yahay ciidan beeleed maamul goboleedyadaas ay aaminsan yihiin mana ka qariyaan ajnabiga see looga saari karaa ciidan beeleed oo u noqon kara ciidan muunad qaran midda ugu muhiimsan waa midaas waxaas oo dhan marka maxaa asal u ah
ciidankan tirada badan ee 50 kun oo haysano oo amisom 5 dawladood ka joogan ugu yaraan waxa lagu leeyahay 6 dawladoodna mishaarkiisa ay bixisaa iyo laba hay-adood iyo ciidankan tirada badan ee Soomaaliya isdhex yaacsan maxay wax u qabalayeen halka aan rabo inaan gundhiga ka dhigo waa halkan waxay wax u qabalayeen hal waxa maqan waa accountability waa isla xisaabtanka yaa asaas u ah baarlamaanku muxuu u xisaabtami lahayaa parliamentarian ah jiray xanuunkeeda ogahay wasiira noqday xanuunkeeda ogahay anoo wasiiro 10 bilood mishaar qaadana waa arkay anoo xildhibaan oo 9 bilood mishaar qaadana waa arkay kuwa hadda ku jira baarlamaankana 9 bilood mishaar ma qaadan waa xaqiiqo jirta xildhibaanku muxuu u shaqeeylayaa experience yaa idin sheega idinkana waa ogtii waa in xasuusinaa kaliya wuxuu u shaqeeylayaa arabta waxay tiraahdaa dawic kalbak yudiicak eygaaga gaajaysi ha ku adeecay xildhibaan qaran oo mishaarkiisa struggle ku jira oo subaxii markuu soo kaco raadinayo meesha lacag ka heli lahaa noloshiisa ku dabari lahaa hotel ku xaniman oo ninka hotelka iska leeyahay bishii waa dhamaatay 3 kun ee hoteelada ugu yar magaalada 3 kun lagu degan yahay mishaarkiina waa 3 kun 3 kunada kirada haykeen jidka shabaab u taagan yahay ama dhagxaan askartii taagneetii isku aamini weynaan madaxtooyadii askar jiifta hor dhoobnay oo baabuurka markaa maray saacada ku soconaysay askartii taagneeda shaqay weysay kuwii jiifaan naf bidnay oo jidka ina xirno askartii nooleela shaqay weysay dhagxaantii aan amni ka dhignay ma dhagaxa amni noqonay al-shabaab ma aha awood siyaasadeed waddankan ka jirta awood ciidan ma laha al-shabaab waxay ku nool yihiin grievance waxay ku nool yihiin annaga cudurada noo dhaxaysay ku nool yihiin al-shabaab iskama hor keenaan maamul goboleedyada dawladda dhexe al-shabaab iskama hor keenaan beelaha Soomaaliyeed al-shabaab iskama hor keenaan dawladda iyo dawladaha dariska al-shabaab iskama hor keenaan dawladda iyo beesha caalamka annaga way waxa is haystaa al-shabaab way inay dhex kaluumaystaan kaliya marka waxaan rabaa parliamentarianka waxaan inii ballan qaaday hadda talada xukunka aad siisaa idinka gacantiina ku jirta kuma jirta gacan ajnabi kuma jirta gacan kaleeto inuu baarlamaanka base u noqdo accountability soo uu noqon kara laba arin oo mudnaan aan sii doono ta koowaad baarlamaanka inuu xuquuqdiisa iyo gunooyinkiisa helo haday tahay mid mishaar haday tahay mid caafimaad haday tahay mid amni oo ka madax banaanaa karo xafiiska ra'iisul wasaaraha madaxweynaha xildhibaanan soo ahay markaan ku celinaa wasiiran soo ahay hadaa caafimaad u baahato in ay u tagtaa haddaad ammaan u baahan tahay waa inaad adiga u tagtaa haddaad wax yar oo dadka tabaalaysa inaad ku dabartaa u baahan tahay waa inaad ayaga u raadisaa xildhibaanada idinkiin kalimada kuwa dawladaha dariskaana waxay leeyihiin xafiisyo shaqaale gunooyin constituency funding wax la yiraahdo keeyadaas nagu dhow xildhibaanku wuxuu leeyahay $100,000 constituency funding oo constituency wax uga qabto wuxuu leeyahay shaqaale staff wuxuu leeyahay xafiis wuxuu leeyahay bishaar $120,000 sanadkii qaato ku filan markaas ummadiisa wax u qaban karaa laakiin shacabka Soomaaliyeed idinku way eedaya xildhibaanada waa xun yihiin mooshan ay ka shaqeeyaan wax kale ma qabtaan idinkana waa leen gabay yaa inii gabay executive wuxuu inii gabayaa in la xisaabtantaan u diidan wax kale ma qodobka labaad maxay tahay baarlamaanku ku shaqeyn karaa waa inaan organize gareynaa siyaasadda oo nidaamsan oo nidaamino kaliya ayaan ku nidaamin karnaa waxaan rabaa qodobka ugu dambeeyo oo taabanay inuu yahay qodobka musuqmaasuqa iga raali ahaada musuqmaasuqa aad looga hadlay waa mid ka ragaadiyay dawladnimadeena musuqmaasuqa muxuu yahay marka musuqmaasuq waa laba nooc musuqmaasuq askartan masaakiinta iyo shaqaalaha dawladda rankiga dhexe iyo kuwa xafiisyada jooga ay ka shaqeeyaan oo ay danaha markay fududeynayaan mishaarkooda qaataan wax yarka khidmada ay dadka qaataan lagu magacaabo musuqmaasuqna muxuu yahay musuqmaasuqna waxa waaye midka siyaasadeed soo yahay mid siyaasadeed wuxuu u yahay haday koox xukunka qabsato oo isku daydo intay is abaabusho ama magac diineed ha yeelato ama magac siyaasadeed ha yeelato inay ayaga awoodda la wareegaan musuqmaasuq qatarta kaas waa mid hadda jirta wadanka waxaa la review gareeyay 12 contract gudiga madaxa banaan ee Soomaali iyo international ay ku wada jiraan kulligood hal uu noqday mid lagu noqday ma jiro kulli waxa lagu naasnuujiyay dad qaraabo ah ama dad ehel lagu naasnuujiyay dhamaantood waa la soconaa waxaan kale ognahay in la sameeyay oo la yiri dib ha loo fiiriyo kontraktiyadaasi waxa soo dhan haday tahay arimaha oo waxa soo dhan ay ku jiraan waxa kamida sida canshuuraha guryaha canshuuraha shatiyada tarismataalaha
istiikarada fiisooyinka laysanka baabuurta daabacadda baasaboorka nadiifinta caasimadda taargada baabuurta khidmada jidadka laga qaado la yiraahdo meelaha ku yaala intaasoo dhan waxaasoo dhan dadaa lagu naasnuujiyey intii kalena martiya ka tahay maxaa keenay waxa la isku dilaya waa taas haddii awoodda dowladda koox ama qabiil isku dayaan inay danahooda gaarka u isticmaalaan waxaa imaanaya in ay dhibaato ka timaado dadka kalena ay ka jawaabaan waana waxa dowladdeennii rido meesha dhigay taasaa u baahan marka in laga hortago mudanayaal iyo mari weeye waxaan rabaa inaan kusoo gabagabeeyo oo faataxadana ay la martaan 19 xildhibaan oo idinkii ka tirsan oo la dilay oo dayac ku dhintay oo cid baartan aysan jirin agoontoodii qaarkood aan ka shaqeeyay inaan wax siiyo qadar yeeshana ma jirto masiirkaas waa inuu sugayaa qabiilada dhameystiraya hadday taas tahayna idinka inay deynaya 19 xildhibaan 45 sargaal iyo saxafi meedkooda waa laga talaabsaday lama hayo maanta meelay jiraan haddii taas la dhameystirayna waa arrin kaleeto haddii muwaadinka Soomaaliyeed ee miskiinka ah ee baska inta jidka loo dhigtay la leeyahay $7 ama $11 bixi xamaaliga ee laboorkii joogane hadduu oo boorso dhabar kugu soo qaado 2.5 dhibic laga qaadanayane hadday tahay dhameystirkani taas waa ayaan daro waxa aad iyo aad u xanuun badan in 19 kaas xildhibaan cid wax ka soo qaadaysan jirin cid maanta dan kalena aysan jirin ilmahoodii cid meel ku og jira xuquuqdoodina qof raadinaysa aysan jirin masiirkaas waa inaa ogaataan dalkaas galbeedka ah waxay ugu dagaalamayaan xuquuqda qofka rifujiiga ee Soomaaliga ama madow ama muslimka maxay tahay ma haynay jecel yihiin waxay ku shaqeeyaan inaan darbigooda loo soo gelin darbigooda in loo soo gelin waxaad la socotaan Sacuudiga inay isku qabtaan Ingiriiska nin la yiraahdo Mas'ari oo ahaa mucaarad ilaa yamaama jiray waa markuu John Major madaxda ahaa $22 bilyan oo ah dhilkaas oo hub u kala iibsanayeen Sacuudiga iyo dawladda Ingiriiska Sacuudiga waxay leedahay haddaad rabtaan 22 bilyan inay yamaama dhil aan ku iibsano waa inaa Mas'ari oo mucaarada gacanta noo soo gelisaan John Major wasaaradda arrimaha gudaha waxay isku dayday inay gacanta u geliso laakiin waxaan halkan u soo xiganayaa qaadiga Ingiriiska wuxuu dhahay oo diiday inuu Mas'ari gacan geliyo wuxuu ku yiri ninkii cigaal kale hadduu maanta ninkaas lacag ku iibsado bari aan ugu iibsanayaa dhahay Mas'ari waa joogaya xuquuqda waxa la siinayaa lujuuga ama maarta maangelyadana waa haysanaya halkaas waxa ku kansalmay 22 bilyan oo dhamaama dhil ah because inuu ninkaas arabka ee Sacuudiga ee baxsadka ee mucaaradka xuquuqdiisa helo qaadiga Ingiriiska wuxuu ku ilaalinayay ma ahayn Mas'ari inuu daneynay wuxuu ilaalinayay tiis dadkaas xuquuqda ilaalin lahaa oo muwaadiniin Soomaali maanta ay sugayaan oo ay soo fiirinayaan oo ay dhowranayaan rajo Soomaali u dhimano idinka ay maanta ma jirto maalinta aad codka ridaysaan Ilaahay waa inuu hortaagan yahay dhaartiinina waa inuu eegaysaa waxaan ka codsanayaa ballanqaadka aan sameeyay inaan idin ballanqaado waxaan idinka baryayaa in ka codsanayaa inaad codka isiisaan baarlamaanka doorashadiisa ay ku timid waan ogeyn waxay ahayd buuq badanaa ka jiray adduunka cabasho badan oo ka muujiyay waxaan ka shaqeyn doonaa inaan ictiraafka dawladdan tii ay heshay 2012 oo lumiyay fursadaas inaan mar kale soo celiyo oo aan wada shaqeynta beesha caalamka aan ka shaqeeyo dawladda ictiraafsan yahay baarlamaanka ictiraafsan yahay oo mugga ictiraafka kii 2012 inaan keeno natiijada ka soo baxdayna ku xiran tahay inuu tii hore noqonayso iyo inay mid ayada ka duwan noqonaysana waxay ku xiran tahay natiijada ictiraafka mar kale waxaan ka codsanayaa in codkiina isiisaan waxaana ka shaqeyn doonaa baarlamaan sharaf leh oo karaamo leh oo dadnimo leh oo xuquuqdiisa haysta inuu wadanka ka yimaado taas markay dhacdaa dawladnimada Soomaaliyeed koow ah because baarlamaanka asal ah dawladnimadeena laakiin inta baarlamaanka la rabo in lagu maamusho maaragtay nafjeclaysi iyo shaxaad iyo wax maalin la siiyo iyo xuquuqdooda loo diido dawladnimo ma dhawa maanta gacantiina ku jirtaa dawladnimadii Soomaaliya bilowgeedii iyo dhamaadkeedii maanta idinka haya waxaan rajaynayaa in arrintaas aad yeeli doontaan waa mahadsantihiin wassalaamu calaykum intii isku aamini weynaan madaxtooyadii askar jiifta hor dhoobnay oo baabuurka markaa maray saacada ku soconaysay askartii taagneeda shaqay weysay kuwii jiifaan naf bidnay oo jidka inaa xirno askartii nooleela shaqay weysay dhagaxaantii aan amni ka dhignay ma dhagaxa amni noqonay al-shabaab
ma aha awood siyaasadeed waddankan ka jirta awood ciidan ma laha al-shabaab waxay ku nool yihiin grievance waxay ku nool yihiin annaga cuqdada noo dhaxaysay ku nool yihiin al-shabaab iskama hor keenaan maamul goboleedyada dowladda dhexe al-shabaab iskama hor keenaan beelaha soomaaliyeed al-shabaab iskama hor keenaan dowladda iyo dowladaha dariska al-shabaab iskama hor keenaan dowladda iyo beesha caalamka annaga waay waxa is haystaa al-shabaab waa inay dhex kaluumaystaan keliya marka waxaan rabaa baarlamentarianka waxaan inii ballan qaadaya haddaa talada xukunka aad siisaa idinka gacantiina ku jirtaa kuma jirta gacan ajnabi kuma jirta gacan kaleeto inuu baarlamaanka base u noqdo accountability soo uu noqon karaa laba arrin oo mudnaan aan sii doono ta koowaad baarlamaanka inuu xuquuqdiisa iyo gunooyinkiisa helo hadday tahay mid mishaar hadday tahay mid caafimaad hadday tahay mid amni oo ka madax bannaanaa karo xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha xildhibaanaan soo ahay mar kalean ku celinaa wasiiraan soo ahay haddaa caafimaad u baahato waa inaa ayaga u tagtaa haddaad ammaan u baahan tahay waa inaa ayaga u tagtaa haddaad wax yar oo dadka tabaalaysa inaad ku dabartaa u baahan tahay waa inaa ayaga u raadisaa xildhibaanada idinka in kalamida kuwa dowladaha dariskaana waxay leeyihiin xafiisyo shaqaale gunooyin constituency funding wax la yidhaahdo kenyadaas nagu dhow xildhibaanku wuxuu leeyahay $100,000 constituency funding oo constituencygiisa wax uga qabto wuxuu leeyahay shaqaalihii staff wuxuu leeyahay xafiis wuxuu leeyahay bishaar $120,000 oo sanadkii qaato ku filan markaasuu ummadiisa wax u qaban karaa laakiin shacabka Soomaaliyeed idinku way eedaya xildhibaanada waa xun yihiin mooshan ay ka shaqeeyaan wax kale ma qabtaan idinkana waa leen gabay yaa inay gabay executive wuxuu inay gabayaa in la xisaabtantaan u diidan wax kale ma qodobka labaad maxay tahay baarlamaanku ku shaqeyn karaa waa inaan organize gareynaa siyaasadda oo nidaamsan oo nidaamino kaliya ayaan ku nidaamin karnaa waxaan rabaa qodobka ugu dambeeyo oo taabanay inuu yahay qodobka musuqmaasuqa iga raali ahaada musuqmaasuqa aad looga hadlay waa mid ka ragaadiyay dawladnimadeena musuqmaasuqa muxuu yahay marka musuqmaasuq waa laba nooc musuqmaasuq askartan masaakiinta iyo shaqaalaha dawladda rankiga dhexe iyo kuwa xafiisyada jooga ay ka shaqeeyaan oo ay danaha markay fududeynayaan mishaarkooda qaataan wax yarka ay khidmada ay dadka qaataan lagu magacaabo musuqmaasuqna muxuu yahay musuqmaasuqna waxa waaye midka siyaasadeed soo u yahay mid siyaasadeed wuxuu u yahay hadday koox xukunka qabsato oo isku daydo intay is abaabusho ama magac diineed ha yeelato ama magac siyaasadeed ha yeelato inay ayaga awoodda la wareegaan musuqmaasuqa khatarta kaas waana mid hadda jirta wadanka waxaa la review gareeyay 12 contract gudiga madaxa bannaan ee Soomaali iyo international ay ku wada jiraan kulligood hal uu noqday mid lagu noqday ma jiro kulli waxa lagu naasnuujiyay dad qaraabo ah ama dad ehel lagu naasnuujiyay dhamaantood waa la soconaa waxaan kale ognahay in la sameeyay oo la yiri dib ha loo fiiriyo kontraktiyadaasi waxa soo dhan hadday tahay arimaha oo waxa soo dhan ay ku jiraan waxa kamida sida canshuuraha guryaha canshuuraha shatiyada tarismataalaha istiikarada fiisooyinka leesanka baabuurta daabacada baasaboorka nadiifinta caasimadda taargada baabuurta khidmada jidadka laga qaado la yiraahdo meelaha ku yaala intaas oo dhan waxa soo dhan dad lagu naasnuujiyay intii kale martii ka tahay maxaa keenay waxa la isku dilay waa taas hadii awoodda dawladda koox ama qabiil isku dayaan inay danahooda gaarka u isticmaalaan waxa imaanaya in ay dhibaato ka timaado dadka kale ay ka jawaabaan waana waxa dawladdeenu rido meesha dhigay taas u baahan markii in laga hortago mudanayaal iyo marweey waxa rabaa inaan ku soo gabagabeeyo oo faataxadana ay la martaan 19 xildhibaan idinki ka tirsan oo la dilay oo dayac ku dhintay oo cid baartan aysan jirin agoontoodii qaarkood aan ka shaqeeyana wax siiyo qadar yeeshana ma jirto masiirkaas waa inuu sugayaa qabiilada dhameystiraya haday taas tahayna idinka inay deynaya 19 xildhibaan 45 sargaal iyo saxafi meedkooda waa laga talaabsaday lama hayo maanta meel ay jiraan haddii taas la dhameystirayna waa arrin kaleeto haddii muwaadinka Soomaaliyeed ee miskiinka ah ee baska inta jidka loo dhigtay la leeyahay $7 ama $11 bixi xamaaliga ee laboorkii joogane hadduu oo boorso dhabar kugu soo qaado 2.5 dhibic laga qaadanayane hadday tahay dhameystirkani taas waa ayaan daro waxa aad iyo aad u xanuun badan in 19 kaas xildhibaan cid wax ka soo qaadaysan jiray
aybiin warninkii hududkaaga maxaa ku dhacow yiri hududkii meel yar buu ku dhuuntay intuu soo baxo wuxuu ku yiri ahadtu bima lam tuhid bihi wajituka bisaba'in min naba'in yaqin waxa adiga garanay waa ninkii boqortooyada ilaahay intaas la egsiiyay wuxuu yiri waxaadan ka warhay baan ka soo war helay oo waxaan arkay naag saba la yiraahdo dhulban xukuntaan soo arkay nabiga isma waan wuxuu yiri bal ii waran hudhudo warkii isii macni ma xukunaysaa nin mulki iyo nabinimo ilaahay siiyay oo shimbir wax ka dhageysanaya macni inaad awood hadaad hayso diintii waxay ku tusaysaa inaad ku takrifalin dadkana aadan xaqirin oo aadan ka dhageysan oo san yaraysanin nabi muuse markuu yajcalni wasiiran min ahli haaruna akhi haarun oo wasiir iga dhigo yiro walaalkay ah ilaahay waa weydiiyay sababta huwa afsaxu minni lisaanu yiri waa iga fasaaxad badan yahay macnaheedu waxa waa karti aniga aan haysan oo haystaa way madaxdeena waxa lagu arkay kuka karti liita kaliya rabaan diintana waxay leedahay mid ka karti badan raadso yaa qaatitaas dimuqraadiyada galbeedka oo maanta uu haqaltaagayna qaadatay nin madaxweynaha ama prime minister way adag tahay inuu xafiiskiisa ka qoro nin asaga ka liita inuu ka qoro waa adag tahay sababtoo accountability la xisaabtana u taagan mudan yaal iyo marwooyin dawlad markaan fasirayno waxaan ilaadaa Soomaha ama qaran markaan sheegayno waa la isdhexgeliyaa inta badan waa dal iyo dad iyo xukun waxaan rabaa inaan ka hadlo xukunkana waa labo xukunka waa sovereignty-ga waa siyaadada maanta waxaan rabaa inaan si saraaxa leh in la wadaago aan weydiiyo ma hayna anaga siyaado ama madax banaani ma nahay qaran madax banaan haddaan Soomaalinahay su'aasha meesha taalo waa taasa madax banaanida laba loo qaybiyaa mid gudaha ah oo dawladdu inay leedahay legitimate monopolies of finance wax la yiraahdo awoodda dawladnimo inay gacanta ku haysato oo ay ciidanka nabadgelyada iyo booliiska ay shaqeynayaan oo maxkamadaha ay shaqeynayaan oo dawladda amarkeeda oo hirgelayay soconaya ma haysana madax banaanida waa mid dibadeed oo inaan xuduudaheena ka difaacana cadawga territorial integrity-ga Soomaaliya la ilaaliyaa midnimadeeda la ilaaliyaa cirka iyo badda iyo dhulkaba laga difaaca ma haysana ciidankaas maya amisom ma runta inii sheegaya dhamaanteen oo ognahay xuduudaheena amisom ilaalisa madax banaanideedana amisom ilaalisa labadaas ma haysano waxa la rabaa inaan runta maanta aan isku sheegno aan isku warano si aan meesha aan joogna uga guurno aan meel kale u tagno madax banaanideena ama sovereignty-geena maanta anaga gacanta nooguma jirto taasaa keentay inaan dhamaanteen markaa isqabano aan xalano u kala dacwoono waan joogi jigaan xalane sanad iyo baran ka shaqeynay la taliyo waxa labada nin ee meesha soo martay madaxda ka UN-ka halkaaba loo soo wada dacwoodaa halka loo soo arooro waa halkaas inay madaxda ka warqabtaan maleynaya sababtoo ah gacanta kuma haysano awoodeeni iyo madax banaanideedni midna waan dayacanahay haddaana madax banaanidii haynina marka dawladnimadii wali gacanta kuma hayno laakiin wadadeedii aan hayna maxaa keenay dawladnimada inaan gacanta ku haynin madax banaanidii ama siyaadadii qaran ama sovereignty-gii way qaybsan tahay qayb Jubbaland ay taala qayb Puntland ay taala qayb Galmudug ay taala qayb Hirshabelle ay taala qayb Xamar ay taala iyo baarlamaanka awoodda iyo siyaadadu way qaybsan tahay ma kari karnaa inaan awood dawladeed inta yeelano aan siyaadada iyo sovereignty-ga soo celino hal meel isku keeno waa kari weyne 12 sano dawladda ku meel gaarka lisay waxa la yiri hal wada hadal badalkeedii waxa la yiri wada hadal hal lagu keen hal lagu soo celiyo sovereignty-ga ama siyaadadii qaran waxay u baahan tahay waa run in wada hadal lagu soo celiyo u baahan tahay maadaama dawlad awood leh oo siyaadadii iyo qarannimadii hanantaa meesha aysan joogin maxaa badalkeedii yimaaday hal wada hadal siyaasad si loo keeno waxaana kaloo haysanin ciidankeena amniga qaranka waa ka xumahay taliyaashii inay joogaan laba sugidda iyo booliiskii intaba iyo militariga intaba ilaa hadda ciidankeena masruufkiisa waxaa bixiyay dad shisheeye indhahana ka qarsana waa ognahay mishaarkiisa shisheeyaa laga sugaa ma dhici kartaa naba sugiddeena haddii mishaarkeeda shisheeye ka sugayso oo taageeradeena shisheeye ka sugayso oo dhaqaalaheeda shisheeye ka sugayso inay naba sugid qaran noqoto ma dhici kartaa ma dhici karto sida kaliya ay ku imaan kartaan waxa waaye inaan anaga hanano ma bixi karnaa mishaarka naba sugidda waa bixi karnaa bal fiiri miisaaniyadda leeso hor dhigay sanadkii hor 2006 iyo madii sida ku meel gaarka loo keenay naba sugidda Soomaaliya intay ku leedahay fiiri ciidanka xoogga dalka Soomaaliya intuu ku leeyahay fiiri miisaaniyadda booliska Soomaaliya intuu ku leeyahay miisaaniyadda fiiri naashi bacali hadda ka horgabiyo wuxuu yiri Mareykanka waxa qaramadii midoobay waxa ay yiraahdeen qalin Mareykan tihiin markaas ay soo jawaabay waxay dhaheen masruufka maamulka oo baxshaaho ma hal looga maarmeeyay ninka masruufka bixiya ayaa maamulkan looga maarmeeyay wax cad waa haddaba marka rabnay inaan wajahno xaqiiqada dhabta ah
وإن أن تاسكو وجهنا مدة مروين قلب كسد حدو ماشي على وحيتها برلمان كأنه كي سجارات كي تومنات كي كوري لكن كيسي ولي واسكميت هذه سيد الله فالجلها السياسة سيد الله معمولها هناك سياسة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. هذه أيام السلام يا حلوان ذا شرفت له برلمان كفدر لك سوماليا يحمنها أقل كسر قدومك وانكبل هذا سلامت انتبه مديان مرويين ذلك ومريم مرحلة أبار آذو علوس هيستو ضدك سوماليات إنك بدأ هم لي صدح بقول أو سوماليات أي وحي أيهين ما أنت هوس جوجان جد أبارات هوس هرسنايا مركب وحنا إلهي كرجينيا إن وأبارت نجسارو لما أنت إن أقول منو هذه وحنا نقوم هذا علنا قدوم كبرلمانك وكوريجي قدق أبارها لعقتي مشاريعين تنسكت waxaan kaloo rabaa inaan ka dhawaajiyo aan u soo dhaweeyo go'aankii daraad ka soo baxay maxkamadda caalamiga ee cadaaladda ee ku saabsanaa xukunka la xiriira go'aan qaadashada ama xukun qaadista la xiriirta muranka noo dhaxeeya annaga iyo dawladda Kenya waxaan aad iyo aad hoosta uga xariiqayaa in maxkamaddu ay ictimaaday oo ay go'aankeeda ku dhistay isafagaradkii 2009kii aan saxiixnay Soomaaliyana maanta u noqday nafta kaliya ee maxkamadda la horgeeyo kaasoo ay ku mudan yahay sida xeelaliyaha qaranka Soomaaliyeed oo sheegay dadkii hawshaas galay ay sharaf iyo karaamo ku mudan yihiin waxaase wax aad looga xumaada in musharaxiinta qaar isku dayeen inay ka kaluumaystaan biyo calow arintaas la xiriira waxaan rabaa inaan gudo galo barnaamijkayga siyaasadeed intaana gudo gelin dabcan barnaamijkayga waxa la yahay isku tashi aad ayaan u faafiyay intii aan campaign ku jiray 9kii bilood ee soo dhaafay dhamaantiina gacanta ayaa ku wada haysataan isku tashi waxa way aan isku tashano maxaa igu dhaliyay isku tashi aan rabaa inaan ka jawaabo ee sababta keentay hadii aan ummad muslimaan hadaa u noqono quraankeena kariimka ah aayad quraan waxa ku jirta aad u xoog saaraysa isku tashiga halkaas ayaana ka soo dhiraandhiriyay falsafada isku tashi aayadaas aan rabaa inaan la wadaago aayadda waxay ka hadlaysaa nin boqor oo leeyahay dalqarnayn oo asagoo musaafir oo socda ay wuxuu ku soo baxay qolo ay ka kala daadsan tahay ka tawaalaysan tahay ka taalo sideen oo kale markaas ay waxay weydiisteen in ilaahay ay ka magan galaan asagana uu ku caawiyo in ay sad u dhisaan in yaajuuj wa maajuuj waxay dhahay musiduuna fil ardi fahal naj'al laka kharjan ala an taj'ala baynana wa baynahum saddan nimankan yaajuuj wa maajuuj taad nooga dhisay ku dhaheen waxa laali waxa rabtana aan ku siino oo qarash ah waa qolo qarashkii haysata hantidii haysata wax walba haysata laakiin ay ku dhacday hogaan la'aan asagana wuxuu ugu jawaabay qaala ma makani fi rabbi khayr ilaahay wuxuu isiiyo imakaniyay ayaa iga khayr badan faa'iinuni biquwa ee awood igu saacida idinka culimada markii waxay dhaheen quraanka fasiraa dalqarnayn qolada uu caawiyay waxba kuma soo kordhin aan hogaan ahayn aatuni zubr alhadid ku dhaay keena zubr alhadidka aatuni waxa keenayna waa ayaga zubrka hadidka waxa haystana waa ayaga hatta ida sawa bayna sadafayn wuxuu dhaay khalan fuqu afufa waxa afufayna waa ayaga hatta aatuni ufriq alayhi qitran keena uu yiri ayadoo dhibdhibicayso gubanaysa aan ku shubeen waxa soo dhan sameeyay oo tilaabta qaaday oo zuburka haysta oo awoodda haysta ee hadidka haysta waxay ahaayeen qolada u yimid laakiin asaga wuxuu u keenay kaliya hogaan waxa maanta aan meeshan u taaganahay aniga rag ila midka waa hogaanka dalka diinteena hogaanka dalka waxay u leedahay marjic iyo reference ay u leedahay hada ka war nabi yuusuf ayay ijcalni ala khasaa'il al-ardi inni hafidun alim wuxuu sheegtay laba sifood oo ah waxna waa xifdiya aqoonna waa leeyahay macnaheedu amaano iyo xifdi labadaba waa leeyahay ayuu sheegtay gabadhiina waxay tiri markii aabeel hadlaysay nabi muuse ka waramaysa waxay tiri استاجره إن خير من استاجرت القوي الأمين لكن مثل وياك بدوعيا بغردي سبع حكومة جرت اليمن وأنا هذا بحومة أفر لواتن كمشارحة تفتمعيت إن يستنقبر كجري لكن الدون كان هبلا عظيمة وسوه قامية جرو ودين الإسلام تنكو الرمين مركز وحكوتي رايد وقرأ إلى تشان إذا مركي الوشاقي النبي سليمان ملكي يسي وكسو صعدو أي وحي تري ما كنت قاطعة أمرا يا أيها الملو أفتوني في أمري
ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون وعيتري فضوضة قوان إذيك اللي أنتي المقاتل وحيلا تشاني زدت كيد تلو ذاك تلادي نحن دكتي وعيتري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون إذنك وعيتري ورما قوان مقاتل إذنك اللي أنتين مركا قرآنكو نفتي سوى ليهي وحكو سليسان أرنتاس أيضا وحكا لو كسي معبسة بدن نبي سليمان فقروها ملك إلهي مالك هو هتوت كيو واي هتوت شمبر ليلا مركاسو عيلو مالي لا أرى الهدودة أم كان من الغالات سيدا وحلو يلا لما أنتو دواسكو هل وحانو هيسانا واحد صوتاس كيرنا وحيتاي إن هيسان أهين organized politics وحي اللهي سياسات سيدا دبا وادنتا قودو لماري أننا دنتي قود نوما نظام سرا لا بقول صباتي اللحدين كونتيني أفرت هذا كسو بيرتي قفل بوحو كجوغا individual capacity معنيه شخصي يسو برلمان كوجرا ما مثلوا حزب سياسات ما مثلوا جروب سياسات ما مثلوا ايديولوجي سياسات ما مثلوا دن سياسات هدانا السياسه دل اورجانيز غرينينا way adkaanaysaa inay siyaasadda macno yeelato waxay ku wareegi doontaa intii meel ku wareegi jirto madaxtooyada xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo baarlamaanka intaas bay ku wareegi doontaa ma fidi doonto awoodda siyaasadeed siyaasadda ma socon doonto halkaas ay ku xayirnaa doontaa arinta siyaasadda qodobka saddexaad wuxuu aan rabaa inaan taabto barnaamijkay isku tashi waad haysataan qodobada ayagoo qoran ay ku jiraan laakiin anigu waan kor marayaa kaliya waxay tahay waa arrimaha dibadda Soomaaliya waxay ku taalaa meel muhiim ah adduunkana muhiim u ah laakiin waxaad moodaa hadda inay ahamiyadeeda soo baxayso waxaadna aad u sii ogaanaysaa markaad tiraa xilka madaxweynaha rabaa Soomaaliya bal dadka Soomaaliya daneeya ee maqlaysaan in inta madaxdii la wado dibadda la geynayo la weydiinayo joyskooda madaxweynimo inta la isaga yeelayo xagga la iska wacayo interview la iska qaadayo in kama qarsana waa ogtiin waxa keenaya maxaa waaye siyaasadda bariga dhexe iyo markas siyaasadda gobolkan ee geeska Afrika ku xiranta siyaasadii gobolkii dhexe waxay noqotay mid la isaga baxay la isaga baxay awoodii siyaasadeed ee garantoorka ka ahayd ee daaminka ka ahayd ee bariga dhexe siyaasadeeda ku dhisneed dawladda Mareykanka dawladda Mareykanka ayadaa go'aansatay inay si tartiiba uga siibato bariga dhexe marka xoogag tartamaya ka soo baxay oo Iiraan u weyn tahay Turki dhinac taagan tahay Sacuudi oo la sunniga islaamka hogaaminaya iyo wixii raacsan iyo wixii lamid ah tartankaas ka jira bariga dhexe wuxuu ku soo dhaco ku soo gadoomay geeska Afrika ayadoo awalba geeska Afrika oo kamid ahaa meelaha ugu xasaradaha badan gobolka adduunka ugu xasaradaha badan saddex meel la sheegaa waa halkan geeska Afrika anaga aan deganahay Balkaniska iyo bariga dhexe tartankii wuxuu keenay in lagu tartamo Soomaaliya in kama qarsana inta dawladda rabta inay Soomaaliya military base ka hesho ama military meel saldhig military ka hesho ma qarsana loolanka taagan ma qarsana dawladaha jaarka ee sida qaawan ugu tartamaya doorashada Soomaaliya mid qarsan maaha laakiin maxaan u baahanahay haddii Sacuudi iyo Iiraan iyo Turki iyo Qatar iyo Ethiopia iyo Kenya iyo Masar iyo dawladaha gobolka dhow iyo gobolka fog oo dhan ay ku tartamayaan awoodda Soomaaliya ay ku tartamayaan iyo qof walba inuu Soomaaliya ka helo meel uu salka dhigo waxaan u baahanahay hogaamiyaha marxaladda soo socda imaadoona inuu noqdo hogaamiyihiisa furan yihiin inuu noqdo hogaamiye miisaami kara geopolitics-ka lagu hareeraysan hogaamiye ka warqaba loolanka siyaasadeed ee gobolka dhow kan dhexe iyo ka fog ka dhaxeeya ee Soomaaliya ku jihaysan ma aha hogaamiye meeshii looga yeer dhagtiisa maqlay ma aha hogaamiye qariska tuur inuu noqdo oo qariska tuurnimada waa wixii diilay diblomaasiyadda Soomaaliya dhexdiisa la soo dhaafay mana aha hogaamiye inuu noqdo iska hiiraacayo oo meeshii looga yeero farta looga fiiqi tagayo ma iyo waxa la yiraahdo wixii saxiix la yiraahdana qalin ku jiiday wuxuu u baahan yahay hogaamiye isku miisaami kara danaha kala duwan ee gobolka iyo midda adduunka isku miisaami kara inuu yahay ayaa loo baahan yahay waxaan u haysanaa mudanayaal marwooyin haddaan u soo noqdo qodobka ugu muhiimsan waa u dawo mariyay laakiin waa midka koowaad ugu muhiimsan waa xasiloonida siyaasadeed saan ku heli karnaa annaga Soomaali haddaana waxaan isku haynaa siyaasadda musharax kastana waa ka dhawaajiyay laakiin siyaasadii hadda waan gabal-gabalaynay iyadoo gabal-gabal ah ayaan goobo kala duwan ku haysanaa waana isku challenge garaynaa oo jiqaan isaga dhignaa markaan rabno see lagu keeni karaa taas ayaa muhiimadda ay tahay waxaa lagu keeni karaa in la dhiso nidaam siyaasadeed heshiis lagu yahay
sida aan la socotaan dastuurka ku meel gaarka hal qodob laga ma taaban qabiilkiisii wadankan wax walba qabiyo waay in la socotaan waay wadanka wax walba waa qabiyo dastuurkii wali lama qabiyo tirin awoodaha siyaasadeed u dhaxeeya maamul goboleedka iyo dawladda dhexe waxa sheegay dastuurka maamul goboleedyada waxaan ognahay inay ku dhismeen hanaan siyaasadeed iyo waaqic siyaasadeed laakiin sharci baarlamaankan ansixiyay kuma dhismin maanta loo ognahay malaha wax la yiraahdo legality framework ama constitutional mandate ay haystaan ma jiro waxay u baahan yihiin hadda ka bacdi inay yeeshaan waxay u baahan yihiin in gradual process wax looga baxayo ku meel gaarnimada dawlad goboleedka in la sameeyo indhahan kala furno oo ay gaaraan dawlad goboleed buuxda oo shuruudihii dastuurka uu siiyay ay yeeshaan waxay u baahan tahay in laga wada hadlo waxaan u baahanahay nidaamka xisbiyada badan inaan keeno si siyaasad xisbi iyo fikri ideology ku dhisan ay u noqoto aan ka baxno siyaasadda qabiilka iyo adeernimada iyo tolaysiga aan ka baxno oo adduunka oo waa hore ka tagay qodobka saddexaad u baahanahay waxa waaye inaan dib u eegno mar kale oo si dhaba aan u fiirino nidaamka federaalka ah oo hadeertaan annaga wadanka aan ku keenay wuxuu ku yimid heshiis siyaasadeed wuxuu u baahan yahay inuu u dago heshiis bulsho inuu noqdo arintaas markan aan hoosta ka xariiqaya nidaamka federaalka wuxuu ku yimid heshiis siyaasadeed wuxuu u baahan yahay inuu u dago heshiis bulsho iyo heshiis dastuuri inuu noqdo u baahan yahay waa laga maarmaa arintaas maxaan annaga markii isku tashi aan adaanahay maxaan haynaa hoon soo bandhigaynaa waxaan aaminsanahay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed marka lagu daro nabad sugidda marka lagu daro booliska marka lagu daro ciidamada kale asluubta kulli iyo marka lagu daro AMISOM intaba konton ku kor u dhaafsan yihiin konton kun oo ciidan ah wadankan joogta waxaan ognahay kontonkaas kun oo ciidanka ah in aysan wali ammaankiina soo celin xasiloonina keenin kala dambeyntii sharcigiina aysan keenin maxaa ka qaldan marka aniga ma rabo inaan wuxuud baana inta inii sheegay yiraahdo saasaan yeelayaa iyo xaqaan dhisayaa sababtoo ah dawladnimadu waxna waa base waa arkaanta ay ku taagantay waxna waa dawladda markay dhisanto waxa la rabo inay qabato inayna seekay qaldamaan ma dawladnimada afar arin ay ku taagantahay hadaan la helin wax ma qaban karto caafimaad wax kama qaban karto waxbarashada wax kama qaban karto jidadna ma dhisi karto dhaqaalana ma abuuri karto hadayna arkaanteeda afarta ayada ay ku taagantahay marka hore aan la taagin afartaas rugni maxay yihiin waa amniga daaqiliga waa ina ciidankeedii booliska iyo nabad sugidda iyo nabadgeliyada iyo maxkamadaha ay dhisan yihiin oo dawladdu ay leedahay awood ay sharciga ku meel mariso canshuurna ay ku qaadan karto ciidankeeda qaranka inuu dhisan yahay oo siyaadada iyo madax banaanida qaranka uu ilaaliyo ayaa loo baahan yahay dunida hadda aan ku noolnahay carabta waxa la yiraahdaa laba dawlad kaliya iyo bariga dhaxo dhan isku dar laba dawlad kaliya dawlad ka ah waa Egypt iyo Tunisia sababta u yihiin waxa waaye rejiimka wuu isbedelaa laakiin dawladdu way taaganta midda labaad waa maxay qodobka labaad waxa waaye inaan helno bureaucracy shaqeynaya maamulkii dawliga ah wadogtiina hadda warqad xafiis ka baxdo oo xafiis kale ku dhamaata waxaan ku amaanayaa waxa ugu roon gudoonka baarlamaanka runtii ma horteeda inay fadhiyaan laakiin inta kale physical communication is arag shakhsiga lagu wada shaqeeyaa prime ministerka madaxweynaha wasiirada ra'iisul wasaaraha madaxweynaha waxa kulamada tirada badan u socdaan waxa waaye bureaucracy aan shaqeynaynin macnaheedu bureaucracy dawladeed aan shaqeynaynin taasna waa rugniga labaad ee dawladdu inay ku istaagto loo baahan yahay waa ciidan amni daaqili waa ciidan khaarijiyo ilaaliya sovereignty-geeda ciidankii qaranka ilaaliya madax banaanideeda waa bureaucracy inay dhisan yihiin justice cadaaladii marka fiiriso miisaaniyadda budgetka cadaaladdu waa meesha ugu dhaqaale yar xafiis kasta ka dhaqaale badan cadaaladda waxaan suugaynaa garsoor inaan dhisno way adag tahay garsoorkaas inuu dhismo aad u adag tahay maxaa marka ciidankaas Soomaaliyeed inuu dhismo hortaagan dhowr qodob aan anaga sheegnay aragti la'aan mudnaansiinta dhismaha iyo maalgelinta ciidanka qalabka sida is-afgarad siyaasadeed oo aan ka dhex jirin dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada qaabka baaxadda hanaanka sharci ee ciidanka xoogga dalka uu yeelanayo maamul goboleedyada wax badan aan ka ogaaday intaan ka shaqeynayay dhinaca kale United Nationska marka la kulanto runta gaaladay u sheegaan Soomaalidu iskuma sheegaan waxa la aaminsan yahay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iga raada taliyihiisa meeshan uu joogo inuu yahay ciidan beeleed maamul goboleedyadaas ay aaminsan yihiin mana ka qariyaan ajnabiga see looga saari karaa ciidan beeleed oo u noqon kara ciidan muunad qaran midda ugu muhiimsan waa midaas waxaas oo dhan marka maxaa asal u ah
ciidankan tirada badan ee 50 kun oo haysano oo amisom 5 dawladood ka joogaan ugu yaraan waxa lagu leeyahay 6 dawladoodna mishaarkiisa ay bixisaa iyo laba hay-adood iyo ciidankan tirada badan ee Soomaaliya isdhex yaacsan maxay wax u qabalayeen halka aan rabo inaan gundhiga ka dhigo waa halkan waxay wax u qabalayeen hal waxa maqan waa accountability waa isla xisaabtanka yaa asaas u ah baarlamaanku muxuu u xisaabtamilayaa parliamentarian ah jiray xanuunkeeda ogahay wasiira noqday xanuunkeeda ogahay anoo wasiiro 10 bilood mishaar qaadana waa arkay anoo xildhibaan oo 9 bilood mishaar qaadana waa arkay kuwa hadda ku jira baarlamaankana 9 bilood mishaar ma qaadan waxa xaqiiqo jirta xildhibaanku muxuu u shaqeeylayaa experience ay idin sheega idinkana waa waqti waana xasuusinaa kaliya wuxuu u shaqeeylayaa arabta waxay tiraahdaa dawic kalbak yudiicak eygaaga gaajaysi ha ku adeecay xildhibaan qaran oo mishaarkiisa struggle ku jira oo subaxii markuu soo kaco raadinayo meesha lacag ka heli lahaa noloshiisa ku dabari lahaa hotel ku xaniman oo ninka hotelka iska leeyahay bishii waa dhamaatay 3 kun ee hoteelada ugu yar magaalada 3 kun lagu degan yahay mishaarkiina waa 3 kun 3 kunada kirada hay keen jidka shabaab u taagan yahay ama dhagxaan askartii